wasiirka wasaaradda qorshaynta ee Somaliland ayaa beeniyay war sheegay in gobolka Togdheer uu helay 5% mashruuca horumarinta magaalooyinka ee Somaliland. Wasiirka waxa uu sheegay in arrinkaasi uu yahay waxba kama jiraan mashruucaasina wali iyagu ayaan shaacin sida loo kala helay. Yaasir Cabdullaahi ayaa eegaya. wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta Somaliland mudane Xasan Maxamed Cali Gaafadhi ayaa kulan warbaahinadu ku qabtay xafiiskiisa waxa uu waxba kama jiraan ku sheegay warar si weyn ugu baahay baraha bulshada isla markaasina ku aadan saami qaybsiga mashruuca horumarinta Somaliland ee loo yaqaano SDF oo muujinayay in gobolka Togdheer uu ka helay 5% mashruuca horumarinta Somaliland isagoo sheegay inaan haba yaraatee aan wali la gudagelin qorshayntiisa iyo waliba sidoo kale xadeynta qaybaha kala duwan ee goboladu u helayaan saami qaybsiga mashruuca horumarinta Somaliland ee SDF loo yaqaano. waxay la shalato marayay maxaan ku raahday social media marayay shax inaan wariyaha soo dhigay oo kaga hadlayo sida loo qaybiyay mashruuca la yiraahdo SDF ama mashruuca horumarinta Somaliland oo uu ku shaxeeyay gobolada iyo mid walba inta ay ka heshay waxaan ummadda iyo shacabka Somaliland u sheegaynaa arrinkaas arrin wax ka jiraan maaha arrin saliya baartoonale maaha arrin maanta cid xataa dadka gacanta ku haya xataa ay ka jawaabi karaan shaxda uu sheegayo ay shax rasmi ah oo jirta ilaa hadda aan laba haynin waayo waxa weeyaan mashruucii waxna waxay ku jiraan qabyo qoraal waxna weli lama boqorin waxna waa la approve gareeyay oo waa la ogolaaday intaas soo marxaladooda kala duwan bay isugu jiraa ilaa hadda waxa la garan karaa waxa weeyaan dhowrka mashruuc la ogolaaday laakiin wixii kale oo dhamay waa wax qeydin oo gacan uur ku jirta wax la ansixin doono iyo waxaan la ansixin doonin Allahu yaclamiyo waqtigeeda marka ninka shaxda soo dhigay khalkhal iyo been abuur balaaran ayuu geystay iyo dacaayad iyo waran jirin waxaanay tahay inuu isagu ka jawaabo meeshii uu ka keenay iska sahlanta qofku inuu war aan waxba ka jirin sheego laakiin waa lagu xisaabtamayaayo waa inuu proof gareeyaa oo cadeeyaa xogtaasu xaqiiqadeeda taasaana looga fadhiyaa qaranka iyo shacabkana waxaan u sheegaynaa inaan arrinkaas arrin wax ka jira aanu ahayn anigu wasiirana aanin ogeyn ilaa iyo haddada shaxda qaybinta qolada maxaan ku raahday secretariatka SDF-na aanay sheegi karin shaxda iyo sida ay goboladu ay u kala heleen waayo waxa weeyaan waa arin qeydin oo barkii qeydin yahay inta badan ay qeydin tahay marka been abuurka inta leeg waa dambi qaran iyo waxaan ku raahday software habaabin iyo dadka warbeena oo lagu soo tuuray oo aan ku wanaagsanayn qof suxufi inuu waxa sameeyo waanaanu dabageli doonaa waana weydiin doonaa inuu cadeeyo meesha uu ka keenay iyo xaqiiqada uu warkiisu leeyahay aad iyo aad baan uga tacsiideynaya waa tacsiye shacabka in inta laagin loo sheego aad iyo aad baan waliba in wariyaa oo mas'uuliyad ka saaran tahay warka uu dhiibaya inuu war xaqiiqo ku fadhiyo ahaado inuu isticmaalo midiyaha uu joogo inuu ku lumiyo oo been aan raad lahayn uu ugu sheego shacabka halkuu war wanaagsan oo xaqiiqo leh haba xumaada hadduu doonayo laakiin warku waa inuu xaqiiqo ahaado halkuu uga sheegi lahaa inuu isticmaalo qaab qaldan oo maxaan ku raahday jaha habaabin ku keenaysa shacbiga taasuna walba wuxuu geysto waa la weydiinaya haddii la yiraahdo aad iyo aad baan u salaamayaa shacbiga waxaan leeyahay mashruuca wali hawlihiisii qabyo weyn baa ku jirta qabyadaas oo ay dhamaatana shax hubanti ah oo la heli kara ma jirto sidaana ku ursamaada